kolonyo ka tirsan gaadiidka ciidamada Kenya ayaa qarax waxa lagu leegtay deegaanka Lamu ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. qaraxan oo noociisu ahaa minad dhulka lagu aaso ayaa kolonyada gaadiidka lala eegtay xilli ay ka yimaadeen magaalada Kiyuga kuna sii jeeday xero ku taala buurta Koomale sida ay sheegeen warbaahinta Kenya. qarax ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana la sheegay in 3 askari ay ku dhinteen halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen. saraakiisha ciidamada Kenya waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha soo gaaray ciidamada Kenya ee qarax lagu leegtay magaalada Lamu. balse mas'uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab waxayna tilmaameen in qaraxaas ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada Kenya. dowladda Kenya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka digaysay halista kooxda Al-Shabaab oo ay sheegtay inay qaadi karaan weerar ay ka fuliyaan gudaha Kenya. waxaana maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo adkeeyay ammaanka xuduudda si looga hortago weerar ay Al-Shabaab ku qaadi karaan gudaha dalka Kenya. Kenya ayaa qayb ka ah ciidamada Midowga Afrika ee taageeraya dowladda Soomaaliya oo hadda xilligan dagaal adag kula jira kooxda Al-Shabaab waxayna hore ula kulantay weerar argoosi ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac. waxaana dhowr jeer oo hore magaalada Lamu ka dhacay qaraxyo la eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Kenya iyo sidoo kale dagaal halkaasi ku dhexmaray. waxa ay ku damaashaadayaan isla markaana ay waqti ku qaadanayaan biyaha xeebta dalkooda balse war iyo wacaal uma hayaan qataraha laga digayo ee dabeelaha xilligan kuwaasi oo si xoogan looga dareemayo halkan. dabeelahan waxa ay ka xoog badan yihiin kuwii sanadkii hore waxaa laga digayaa dhibaatooyinka ay geysan karaan. nabadoon Kamaal Maki Aways gudoomiyaha iskaashada Dan Kulmis waxa uu uga digayaa bulshada isticmaasha xeebta Liido qataraha dabeelahan waxaan ugu baaqay in ay taxadar muujiyaan. beesha dabeelaha arki jirna maan guriga laga jiif laayahay badana aad uga sii xuntahay dabeela markii la dhaho doomaha xataa dhib u geysanay waxa imaana doonta inay gadoonto inay dad ku dhintaan waa imaanay marka taxadiro badan waxaan u soo jeedinaa dowladda in ay sameeyaan raashinka ay qaadanayaan saxiif fiican inay qaataan oo hadii cilad ku timaado ayagoo ay doonta la gadoomin in macnaha ay raashinkaas ay ku badbaadi karaan. ugu dambeyn xeebay geeyin kartaa ay ka dhici karaan ama maraakiib ay gurmad keeni karaan laakiin ninka inuu sahal habeen raashin oo ku talagelin oo mar walba oo ku xisaabtamo dabeeshan oo zaa'id ku dheer cimilada hadii isbedeshaan aaminsan Cabdirashiidow xilliyadood anaga isibkeena normal oo ahay laakiin hadda isbedelka cimilada inaan dareemayna oo dabeelahaas doomanka xataa dhib ay ugu geystaan marka dabeela zaa'id inay jiraan isibkan isibiyada hore inuu ka dabeela badan yahay aaminsannahay. waxaa noo hirgashay in macnaha dadkaas ay macnaha ay badbaadaan ilaahay xaqiisana ay ka badbaadaan wacyigelinta annaga aan u sameeyna ay ku badbaadaan mar walbana ma haddaas waxaan u celinaynaa ilaahay aan u mahad celinaynaa laakiin qofka markii la wacyigeliyo wax badan oo og yahay waxaasoo macnaha taxadir ka samayn karaa. ilmaha marka hore waa iska imaanayeen xaafadahaas ka imaanaan baday galayaan cunug lagu soo dadaalo intaas tacab la soo geliyay hore ka dhimana dhimashadana waa u qorantaa laakiin waxa waxyaalo oo markaas laga gargaari karo ama gurmad laga samayn karo ama dadaal laga samayn karo oo wixii ay ku baaqan karaan aan isleenahay inay jiri karaan. marka dhimashada sidoo hore inoogu ahaan jirto waa ka yar tahay inay waalidiinta ilmahooda ay ku wacyigelinayaan xilligan inay badda xun tahay lana geli karin haddii ay dhahaan makaare dhalinyarada qaar aan waalidiinta macnaha aan war ka maqlayn ama iska soo baxaya jiro inay salbajantadan hadda aan videoga aan ku soo duubno kale inay gashtaan xilligan inaysan baddaba ay soo aadin maadaama dabeelo xun ay jiraan oo berigi laga joogi lahayahay baddana ay ka xun tahay. dhinaca kale gudoomiyaha iskaashada Dan Kulmis nabadoon Kamaal Maki Aways waxa uu ka warbixiyey 4 doon oo ka mid ahaa doomihii kalluumaystada Soomaaliyeed ee u adeegsanayeen jalaabashada kalluunka kuwaasi oo kal hore lagu waayay xeebta Liido. waxaana uu tilmaamay in 4 doon iminka laga helay xeebaha dalalka ay ka mid tahay Sri Lanka, Singapore iyo jasiiradda lagu magacaabo Maldives. doomihii batatan kulligooda macnaha mid dhineed markii ugu dambeysay warbixinada aan dhiibayay hadda mid ugu dambeysay Sri Lanka laga helay midna waxaa laga helay oo ugu horreysay Maldives Singapore midna Maldives laga helay saddexdaas loo helay midna waxay ka soo dhacday dhinacan cadala 7 habeenay maqneed ayagana waxaa saaciday nin naaqoodo oo hadee waqti hore soo shaqeyn jiro hoorigu soo shaqeyn jiray shariic oo soo saartay shariic oo ku yimid ilaahana garab ku siiyay maadaama farsamadii uu yaqaan markii xaaladda ay xumaato shariicina waa u saarnay intaas saaciday oo markaas oo wadanka inuu ku soo noqdo 7 maalmood oo ka maqnaado biyo dheer oo biyaha waaweyn oo macnaha maraakiibta ama isku dhaafan isku goosha ama biyaha caalamiga oo ku jiray ilaahina waa ka keenay taasaas ay hirgashay dhalinyaradaas dhibka ka soo gaarana waa maxaan ku jirnaa sida loo keeni lahay
horena waa u keennay oo waxaa nagala shaqaysa hadda kor wasiiraddii mari aan weyso dekedaha qolo oo Sri Lanka ka dhacday ilaa 5 ahayn waa keennay qolo kale oo ka dhacday maxay ahayd ayagana mar kale Sri Lanka ka dhaceen ayadana waa keennay waxaa naga saaciday wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda tii horena wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo mari aan weyso dekedaha ahayd shaqay ku wada lahaayeen intaasba waa naga saacideen sida dhalinyaradaas loo keen lahay waana hadda ninka doo shaqaysana in garab la siiyo dawladda ay siiso annagana aan siino aan macnaha aan u taaganaa mar walba oo sidii markaas ay u imaan lahaayeen aan ka shaqayno aabe cali cambar maxamed waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha doomihii ku lumay xeebta Liido waxa uu sheegay in 3 wiil uu dhalay ay ka maqnaayeen in ka badan 2 bilood waxaana uu tilmaamay iminka doontiisa iyo wiilashiisa in uu dib u helay ilmahayga waxaa loo helay badda xamaray aadeen malaaya gaadeen malaaya qabteen matoorkii duqeeyey matoorka duqeey badda waa la tagtay 2 bilood iyo 2 casho iga maqnaayeen mardaay deebada laga helay ilmahayga dawladda Soomaaliya aan oo keentay xasha shaqri wasaara hormud u yahay ayaga noo keenay waana mahadsan yihiin waana ku suuna waana ku madaxweynaha ra'iisul wasaare arrintii noo qabtay waa mahadsan yihiin waxay waa 3 shaab cali cambar iyo maxamed cabdullaahi iyo daadir shakariye 3 cunug waay 3dina waa la keenay wasaaradda waa ku soo waa ku mahadlay arrimaha dibadda go'aankay noo gaartay ee nooga qabatay aad bay u mahadsantahay xilli ay ka digayaan dabcan qubarada ee kalluumaystada ee xilliga dabeelaha qatarta ay leedahay in xeeb dadku ay isticmaalaan ayaa haddana halkan ka soo hadlayo xeebta Liido ee magaalada Muqdisho maalmaha Khamiistii Jimcaha waxa yimaadeen maalmaha kale dad aad u fara badan kuwaasi oo halkan u yimaada in waqti ku qaataan isla markaana xeebta ku dabaashaan halkan iminka dadka isticmaalaya ee xeebta imaanaya wax cabsiya ka muuqato laakiin kalluumaystada iyo sidoo kale qubarada ee cilmiga badaha yaqaan waxay ka digayaan in dadku ay taxaddar muujiyaan iyo sidoo kale dadka soo jilaabanaya kalluunka isla markaana ay aad u fijinadaan dhibaatooyinka ay dabeelaha ay kala kulmi karaan xilli la fiican loogu jiro sidii xal kama dambaysan looga gaari lahaa colaadaha iyo dagaalada ka jira galbeedka gobolka Mudug ee u dhaxeeya maleeshiya beeleed walaalaha halkaasi wada dega isla markaana ay garwadeen ka yihiin dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa waxa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gaalkacyo ay ka hadleen aragtidooda ku aadan dadaalada loogu jiro xal u helidda xiisadaha colaadeed ee wili ka taagan galbeedka gobolka Mudug maadaama wili halkaasi ay isku hor fadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay qaar ka mid ah shacabka Gaalkacyo oo ka mid ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxalo isagu ka mid ahaa dadkii u istaagay ama doorka weyn ka qaateen nabadda ka jirta gobolkan intiisa badan ayaana ugu horeyn ka hadlaya dadaalada loogu jiro xalinta colaadaha ka jira galbeedka gobolka Mudug iyo talaabooyinka xiga ee loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo su'aashaadi weydiisay maamulada Galmudug iyo Puntland dadaalada ay wadaan waa ku mahadsan yihiin wasiirada dadaalada ay wadaan waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan tamanaynaa danaay shacab ku nool gobolka Mudug wadadii saxda ahayd waxna waa laga hayaa waxna laga maayo wadada saxda waxa way koow horta in laga kala qaado ciidan ama la dhex dhigo ciidan laakiin guddigii farsamada horeeto oo la qabtay haddana mar labaad waxa la guddi farsamo la qabanaya oo 7 casho ka bacay la qabanaya haddana waxaan u arkaa wadadaas wada xoogaa dadku ay saluugsan yihiin nabadda lafteeda ay saluugsan tahay nabadna aysan ku imaan karin nabadda waxa ku imaan kartaa 2 shay in laga dhigo koow in odayaasha dhaqanka iyo maamulada heer gobol iyo heer degmo loo daayo dawladdu kor joogtayso wasiirada kor joogtayaan culumaduna goob joog ka noqoto oo ay shaqada qabato haddii aan nabadda sida ay tahay loo qabanna wax badan baa ka sii halaabaya gobolka Mudug nabad badan buu ku naalooday wax badan baa laga soo qabtay dad badan oo xoogaa leh ama suldaamo leh ama odayaal leh ama maamul leh ama ururada haweenka nabadda leh ayaa jooga magaalada baaqi u horeeyay cidii dadna waxay ahayd ururka haweenka nabadda gobolka Mudug waxaa rabaa in laga talageliyo haddaan laga talagelin qof kasta oo nabadda jecel nabadda carqalad bay noqonaysaa maan raxiim magacaygu waa Maxdiin Cali Salaad jooga gobolka Mudug Gaalkacyo arrintan nabadeynta la wado horta nabadeynta waa soo dhaweynaynaa
arrinta nabadeyntu waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay waqtigeedii joogta dad walaalaha muslima oo meel wada degan oo isdilaynaya oo maaragtay 2025 dagaal macnaha isku haya waa wax aad iyo aad looga naxo iyadoo Soomaaliya 32 sano dagaal isku soo jirtay qabiil marka waa nasiib darro weyn in dadkaas maanta qabiil ay ku dagaalamaan aad iyo aad bay nasiib darro u tahay nabadeynta la wado wasiirada iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanku ay wadaan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay hal la tago meesha dhibku ka jiro waxaan ku boorinaynaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka waxgaradka oo reer Galmudug iyo Puntland ama beesha leelkase walaalaha leelkase hadday wasiir leeyihiin hadday senator leeyihiin hadday xildhibaan leeyihiin meesha dhibku ku jiro oo ka jiro inay tagaan dadka kala celiyaan dadka kala qaadaan markaas ka bacdi wixii dhaqan dhaqaale la isku haysto iyo wixii maaragtay dad la isku haysto markaas ka bacdi la kala guro laakiin hoteelada baaqyada laga jeedinayo iyo nabadeynta laga sheegayo kuma filna dhibka halka ka jira dhibka meesha uu ka jiro in la tagaan rabnaa dadka la kala qaado wiilasha qoryaha wata oo islaynaya la kala wareejiyo la kala fogeeyo dadka nabad lagu soo celiyo deegaamada markaas ka bacdi wixii la isku haysto laga wada hadlo shar iyo dhibka jira ilaahay inuu naga damiyo marka labaad aniga aragtidayda nabadoonka ahaan waxay leedahay borosays nabadu la maray leedahay haddii borosayskeedu qaldamana waxa la wadaa waxa iska noqonayaan sheeko ku bilaabanayaan sheekana waa ku dhamaanayaan borosayska nabadda la maro waxay tahay kow marka hore in colka meesha laga qaado yaalla meelaha la isku hayaana ay noqdaan meelo ammaan ah oo nabaddu ka muuqato colkii jooga ay ka baxaan kow labo in wada hadal bilowdo wada hadalkoo ku salaysan xaqiiq dadka meesha ku dirarana ay ka wada hadlaan waxyaabaha la isku hayo iyo waxa dagaalka keenay dawladduna ay ka joogto ka noqoto laakiin madaxa iyo majahan isku keenaya oo meeshii nabadda laga bilaabi lahaa ayaa waxaan ka bilaabaya ciidamada in laga qaado laga bilaabi lahaa waxaan ka bilaabaya wada hadal aan wada hadalno waxay ila tahay aniga inaan nabaddaasi ay u eg tahay nabad aan furaheedii la abaarin